gabadha halkan kaaga muuqata oo lagu magacaabo Zara Jo Bender sanadu markay ahayd 2000 October 24 waxay ahayd 21 sano jir waxaa lagu soo eedeeyay in ay ka dambeysay ninkeedii oo laba qofood dil u geystay waxayna ka saameyn badatay ama ka hadal hayn badatay ninkeedii dilka geystay waxaa lagu xukumay 110 sano oo xabsiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وفرتونا عبد الرحمن يوتيوب channel كايقا داوني سوان تاشا حنا هذا هوري إلي جوكتوكم مع سنتي thank you so much هذا ديكو عشبتاي gacmo furan iyo waji furan kusoo dhawo youtube-kan waa youtube-kaagii koobkaaga shaha soo qaado maanta waxaa noo wadaa qiso la yaab leh adduunkii oo dhanna ka yaabisay hadalhayn aad u fara badanna dhalisay Zara Jo Bender waxay dhalatay 1979kii May 29keedii waxay ku dhalatay gobolka Indiana ee Mareykanka waxay ahayd gabar wax baratay dugsi sare ilaa jaamacadda heerkeedii koowaad halka waxbarashada uga hartay sabab la xiriira xag dhaqaale waxay shaqo ka soo heshay shirkad lagu magacaabi jiray Care halkaas oo ay ka ahayd sakuurad waxay isaga jirtay jawi degan maalin maalmaha kamida waxay ka soo qayb gashay xalfad bandhigeed halkaana waxay ku baratay wiil lagu magacaabi jiray Rajadna yaraantiisii sida la sheegay wuxuu ahaa wiil ku fiican sportska Zara iyo Rajad waxaa dhex maray xiriir jacayl xiriirkoodiina wuu sii dheeraaday Rajad wuxuu ka shaqayn jiray meel baar ah Rajad wuxuu ahaa nin dambiye kala duwan dawladda xaggeeda ka galay baabuurta dhici jiray xabsiye kala duwanna soo maray Rajad saaxiib waxaa la ahaa wiil lagu magacaabi jiray Andrew iyo Rajad waxaa ka dhaxeeyay wada shaqayn waxayna ka shaqayn jireen waxyaabahan maandooriyaha Andrew asagana sidoo kale wuxuu ahaa nin dambiile xabsiye kala duwanna soo maray asna Andrew saaxiibadiis oo lagu magacaabi jiray Tresha ayadana sidoo kale waxaa lagu qabtay dukumeentiyo feega saddexdoodaba waxay ahaayeen xagga dawladda dad dambiilayaala oo waxyaabo badan dawladda xaggeeda iska daba wareejiyay halkaas qofka nadiifka ah waa Zara maalin maalmaha kamid Rajad wuxuu ka codsaday in ay guri weyn u soo qaado si uu ganacsigiisa u sii ballaariyo wayna ka ogolaatay gurigii waxaa lagu soo degay 4 qofood ee qisada ku socoto qaybta kore ayaga degeen qaybtoosana waxay ka dhigteen qayb ay ku soo saaraan waxyaabahan ganacsigoodii oo maandooriyaha ahaa ganacsigoodii wuu sii ballaartay waxaana la geyn jiray farmashiyo weyn oo ku yaalay Los Angeles halkaasoo lacag aad u fara badan ka soo gali jiray ganacsiga u sii ballaartay 2000 October 24keedii Rajad wuxuu ka codsaday Zara in ay hub la soo iibiso maadaama asaga wax hub uu soo gadan karin oo loo ogolayn waxyaabahan oo ka shaqeynaa ay yihiin maandooriye dhac badanna uu hore u soo geystay si uu isugu ilaaliyo Zara iyo Rajad isla xilligaa way baxeen waxay tageen dukaanka hubka lagu iibin jiray halkaasna Rajad wuxuu ka soo qaatay biskoolad iyo 12 xabo oo rasaas ah isla maalintii waxaa dib loogu soo noqday gurigii markay saa u imaadeen Rajad walaashiis waxay soo wacday Andrew oo Rajad saaxiibkiisa ahaa ayadoo ka rabtay lacag deyna ay ku lahayd halkaana labadii nin waxaa uga bilowday dagaal dheer iyo muran markuu murankoodii soo batay Zara waxay tiraahday aniga uma dul qaadan kara qayladiina waan iska baxaa laga baxsiyaan iska aadaya way iska tagtay labadii nin dagaalkoodu wuu sii dheeraaday Andrew wuxuu yiraahday adiga iyo familkaagaba waan idin laynayaa oo waan idin dilayaa wuxuuna aaday meeshii biskoolada tiile laakiin biskooladii waxay u soo gacan gashay Rajad halkaasna wuxuu ku dilay saaxiibkiis oo lagu magacaabi jiray Andrew hal xab wuxuu uga dhuftay madaxa xabadna wuxuu uga dhuftay xabadka saaxiibkiis kaliya dilka kuma eka xataa gabadhii saaxiibkiis uu qabay oo meesha ka dhaweyd xatee sidii iyadana ku dilay labadoodii wuu dilay Zara saacada ka dambe guriga ku soo noqotay markay imaaday naxdinayadii Zara meeshii laga rabo booliska inay wacdo waxay caawinaad u gashay saaxiibkeedna meedadkii wajigii uu ka bedelay xilligii meedadkii inuu xirxiro bilaabay markii gabalkii uu dhacay wuxuu qaaday meedadkii
Zara waxay u dhex fadhisaa baabuurku meedadkii ku qaaday isla xilligii wuxuu ku soo riday meel ayaga aan ka fogeyn container u dhow oo qashinka lagu guri jiray. Isla subaxnimadkii waxaa soo galay shaqaalihii nadaafadda. Markay maageen containerka qashinka ka bedela waxay arkeen meedad dhex yaallo. Naxadin xilligii waxay waceen booliskii markuu qaaday la soo baaray wejiyadooda inkastoo la aqoon waayey tareesha waxaa loo diray DNA. Andrewna waxaaba lagu aqoodaba tattoo u marsanaa maadaama nin xabsiyo kala duwan uu soo maray. Askartii way aqoodeen inuu Andrew yahay. Askartii waxay bilowday isla xilligiiba ay ogaadeen dadka yihiin gurigii ay ku noolaayeen in ay soo baaraan. Gurigii markay imaadeen waxay ka heleen markay cabaar baareen cadeyman. Labadan qofood Zara iyo Andrewna sidii ayaa iyagana xabsiga loogu taxaabay. Markii la wareystay labadooda oo gooni loo kala wareystay, Rajad wuxuu yiri labadan qofood anaaba dilayba. Laakiin inaan dilo waxaa ka dambeysay Zara markii la wareystay waxay tiri anigu guriga ma joogin, waan maqnaa, iyagoo murmaaya ka tagay. Waxaan isdhahay dadkan way heshiin doonaan. Laakiin markaan guriga ku soo noqday waxaan u imaaday xaalad kale. Xilligaasna aniga cidna ma soo wici karin. labadoodii waxaa la kala geeyey xabsiyo kala duwan. 2001dii waxay bilaabeen labadooda in ay isku soo qoraan qoraallo, isku soo diraan waraaqo. balse Rajad wuxuu la soo wadaagay looyarkiisii inuu haayo Zara waraaq ay ku cadaynayso inay dambiga geysatay. waraaqdaas oo ay ku qoran tahay waan ka xumahay in aan dilkaas geystay, laakiinse waxaan ka sii xumahay inaad dusha saaratay. waxaan ogaaday inaad i jeceshahay. maxkamadii dib markii la isugu soo noqday ee waraaqihii la baaray, qoraalkan iyo qoraalkii Zara inuu isleeyahana la baaray, waxaa la ogaaday in aysan shuqul shaqo isku lahayn. asagiina lagu yiri waraaqaan isma lahan. ka dambana uu cadeystay anaa ka dambeeyay garaali noqdo camal raali gelin halkaas apologies uu ka bixiyay. waraaqdana waxaa u soo sameeyay nin Steve la dhahayo oo kula jiri jiray xabsiga. ninkaas asagana wuxuu u ballan qaaday haddii qoraaladan ay isku ekaadaan inuu xabsiga ku difaaci doono sida la sheegay maadaama uu qof caata wax iska celi karin uu ahaa. 2002 labadoodiiba waa la xukumay. Zara waxaa lagu xukumay 110 sano, Rajadna waxaa lagu xukumay 120 sano. sheekada halkaa kumaysa sii dhamaanin. Zara waxaa la geeyey xabsiga haweenka, xabsigaas oo lagu tilmaamay in uu yahay xabsiyada ugu adag Mareykanka. 2008dii waxay ka baxsatay xabsigii, laakiin inay baxsato waxaa garab ku siiyey amaba ka caawiyey nin lagu magacaabi jiray Scott. ninkaas oo ahaa ilaalada maxaabiista oo askari ahaa oo halkaa ka shaqayn jiray. ninkaasoo Zara jacayl ay ku abuurtay, lacag $15,000 ay siisay. ninkaas Zara asaga xabsiga ka saaray. wuxuu u keenay taleefankaasna waxay kala xiriiri jirtay gabar lagu magacaabo Jimmy oo ahayd Zara saaxiibadeeda in badan ay iskula jireen xabsiga. ayadoo ka codstay Jimmy in ay u keento gaari markii banaanka ay u soo baxaan, halkaana ay ku sii baxsato. sidii waxaa ku caawiyay Jimmy iyo Scott ninkii lagu magacaabayay. Zara markay baxday waxaa la ogaaday in aysan xabsiga ku jirinin. isla markii waxaa lagu soo daabacay joornaaladii waxaana la soo gudbiyay in uu maqan yahay qof maxaabiista ka tirsan oo lagu magacaabo Zara Jo Bender. Zara isla xilligii way baxday, waxay aaday Chicago. magacii way bedelatay, waxay isku bixisay Ashley Thomas. waxay halkaas ka heshay shaqo guri dhismo ku socday. 4 bilood halkaasay ku nooleed. haddana Zara kiiskeedii dib ayaa loo soo cusboonaysiiyey ayadoo la sheegay weli inay maqan tahay gabar lagu magacaabo Zara Jo Bender. laakiinse maalmaha ka mida nin deriskeeda ah ayaa Zara aqooday iyadoo banaanka maraysa. wuxuu ku yidhaahday adiga sumatid Zara. ninkaas tiri maya, ani waxaa la yidhahaa Ashley Thomas oo waxaan u malaynaya inaan idaacadda kugu arkay. way iska carartay Zara xilligii, way naxday, way baxday gurigeedii tagtay. dharkeedii waxeedii diyaarsatay. markii albaabka sa uga baxmaagtay 2 nin oo boolisaaba taagana. Zara sumatid maya, tiri ana Ashley Thomas la yidhahaa. waxaa yaab warka kasii dhageysta waa la qabtay, xabsigeeda dib loogu celiyay. Agosto 5teedii waxaa la qabtay Jimmy oo lagu xukumay 7 sano.
7 Agost 2008 waxaa la soo qabtay Scott oo ahaa askarigii ilaalada ka ahaa xabsiga oo ka dambeeyay Zara inay xabsiga ka baxsato baabuurkiisana ku qaaday asagii waxaa lagu xukumay 8 sano xabsiga kiiskii haddana sidaa kuma sii dhamaanin balse waxaa la yaab noqotay dadkii oo dhan ka yaabisay garsoorihii maxkamadda Zara ku xukumay 110 sano in uu kiiskeedii dib u furay 2023 weliba asagoo sheegay inay Zara freedomkeedii dib u hesho kiiskaasna muusan ahayn kiis sax ah balse taa waxaa ka sii daran oo dadkii haddana ka sii yaabisay hadal haynteedii inay dib u soo noqotayna kalifay 25 sano kadib 2025 December 9 beri kahor in ay Zara maxkamad ka soo dhex muuqatay ayadoo codsanaysa in xorriyadeeda dib loo siiyo wax dambi ay geysatana aysan jirinin ciqaabna ugu filan tahay 25 sano ay xirneed haddaad jeceshahay qisooyinka fadlan ila soo wadaag waxaa inoo balana videogan videoga xiga